والله قصة واقصة يا حنون بدن warbaahinta carabtana maalmihii ugu dambeeyay aad looga hadlayay sidoo kalena Soomaalida dheedxdoodana aad looga hadlayay maadaama Soomaalida wiilalkooda in badan lagu eedeynayay kiisaska noocan oo kala ah hadaba qisadan waxay ka dhacday wadamadan Carabaha gabadha waxa lagu magacaabaa Sara hadaba gabadha waxa soo wajahday labadeedii xubnood ee ugu qaalisanaayay intaha inay mid kamid ah weeydo hadaba xubnaha indhaheega ee ay weeyday waxa kala xanuun badnaa kalena murugo badnaa kalena niyad jab badnaa wiil ay jacayl wadaag ahaayeen muddo aad badan ayna una doonanayd oo u mehersanayd markuu garabkeeda ka weeyday si cad oo bareeran u yiri qof cawiran oo ilaa aan guursan maayo runtii qisadaas oo aad u niyad jabisay dhaqaatiirtii daweynaya xataa ay aad uga yaabeen ayaa warbaahinta carabta haysatay qisadan ayaa maanta doonaya inaan wiilka daadiisa waxa lagu qiyaasaa 25 magaciisana Mustafa ayaa lagu magacaabi jiray wiilkan iyo gabadhan ayaa aad waxa uga dhaxeeyay xiriir aad u qurux badan runtii noloshoodana ay u maleynayeen inay wax walba ay ku soo dhamaan doonaan farxad hadaba wiilkan ayaa doontay baa leeyahay 7 bilood ka hor meherkooduna si qurux badan u dhacay hadaba maalmaha kamid ah maalinta qisadan la yaab kalena ay ku dhici doonto weeyaane ay meelaha afartii galabnimo ay siraahdeen waxa u baxdaan waxa loo yaqaan casho amba shukaansa bidayt qalbo qof sidoo yaqaanay ayaa loo soo baxay dan waxay tageen magaalada iyagoo hadaba sii socda oo wali gaarin goobta doonayeen inay jawi ku soo qaataan ayaa waxa soo weeraray dablay hubeysan kuwaas oo ku furay ilaa 12 xabadood ayaa la sheegay hadaba gaarigii baa si accident ah waxa uu galay shil kadisa daba waxa dhacay in inantii dhaawac culus halka ka soo gaaro labadeedii indhood il kamidana ay runaantii halka ku weeyday waxa dhacay markii shilka dhacay ayaa waxa dhacay muraayadii gaariga hore ayaa waxa inantii dib ugu soo noqdeen indhaheeda taasoo isha bidix ilaa la sheegay 3 quraaradood abaf la sheegay inay indhaha ka kaleeta kalena yar halka wiilku dhaawac badan uu ka soo gaadhin kaliya ta jajab yar oo aad u fuduuliba uu soo gaaray xabadihii markii waxa loola cararay inantii qaybtii emergency-ga ee degdeg ahayd ayaa loola cararay dhakhtarka la geeyay hadaba arinta la yaab kale ee ayadu ilaa ilaanka la yaabantay inantan aad ku qurux badan leh ninka ay jacayl wadaag ahaayeen ee maanta sawjkiisa ay noqonaysay ayaa hal maalin oo kaliya inta ay dhakhtarka ku sugnay hal maalin oo kaliya uu yimid aabaheeda ayaa ninka la hadlay wuxuu ku yiri inanteeda maanta ilaa ay weeyday guursanaysa war buuxaba ayuu ku yiri dooni maayo anu inan عوران أما إن إلا دوني مايا أو نافع دامي قروح ذيبا أي سكلا دنتاشين أنا دوني مايا كنتي إنتي أي أمور جوتي سترس بدن وح سوت شهي إلا دخاتيرتي دويني أي بين لا يابين سترس كسوت شهي دخاتيرتي اللي يتوجد سن إن شاء الله لا ولا إمداد به تبقى يا هيل دونتا تبني كان شعير كجاب حاجة بدر أي لوجه هذا اللي يوربهن تعرفتها runtii marka la eego qofka bili aadamka iyo jacaylka waxaan la yiraahdo waxa uu badan yahay inta ugu badan jacaylku mar mooyaane laakiin percentage-ka ugu badan waxa uu badan yahay danays waxa la yiraahdo runtii waxaan marka la qiyaaso waxa u maleynaysaa in ninkan uu inantan maslaxo uu kula joogay micnaha dan uu kula joogay ayay u badan tahay waxa la moodaa jacaylka taa marka la eegayo inantu inay jacaylkeedu uu badan yahay gabadha Sara ay wiilkan aad iyadu jecesho xageega jacaylku u badan yahay wiilka halku jacaylkiisu uu saa u sii badnaan runaantii markii qadartana ay ku timi wada uu markii hore ku raadinayay inuu ku baxo ayuu ku helay inkastoo xaaladaas oo kale ayna ahayn xaalad runaantii la garabkaaga aan qofka xataa bila aadantimo marka la eego aan qofka garabkiisa ka tagteenba isla waxa uu kaga baxay jacaylkii dhanna markay quruxda badnayd waa uu la joogay laakiin maanta ay cawran tahay runaantii waa uu ka fog yahay inta saarana qisadeeda intaas ay ku kooban tahay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu caafimaadkaaga uu soo celiyo wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh